الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. miyaanay arkin kuwii gaaloobay in samooyinka iyo dhulku ahaayeen kuwo isku dheggan oona kala bixinnay kana yeelnay biyaha wax kasta oo nool ee miyaanay rumaynin. haddaba yaa ogaa taas 14 qarni in ka badan hortood oo aan alle ka ahayn. sheekada qaraxa weyn waxaa la ogaaday bartamihii qarnigii 1950 haddaba yaa u sheegay nebi maxamed naxariis nabiga wuxuu sahatay 14 qarni hortood oo aan alle ka ahayn. mahad oo dhan allah iskale. sida lamida quraanku wuxuu yiri ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. markaasuu eebe u istawooday qastay cirka oo qiiq ah kuna yiri cirka iyo dhulka ahaada idinku adeecsan aman la ikraahi. waxayna dhaheen waxaan nimid annagoo adeecsan. dhammaan culimada xidigisku waxay ka hadlaan waxyaalaha ku taxalluqa daruura boor ah taas oo la ogaaday kadib markii la diray qalabka qorraxda iyo xidigaha lagu eego. qalabka oo laga diray meel ka baxsan qaryaamada iyo diqowga hawada dhulka ku xeeran. qalabka telescope wuxuu soo sawiray qiiq kaas oo lagu micneeyay qiiq si la mid ah sida quraanku ku sharxay. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. haddaba si la mid ah suuradan quraanku wuxuu ka hadlay sida adduunkani ugu amran yahay isagoo degdegaya uguna socdo dhamaadkiisa iyo burburkiisa. suuradan al-anbiya waxaan arkaynaa macnaha fikradda guud ee garaaca weyn bilowga suuradda iyo macnaha guud ee kafaagashada weyn kala durugga weyn ee xagga dambe ee suuradda. aayadda u akhrisanta يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. waana maalintaan u duubayno samada sida loo duubo waraaqaha kitaabka sidaan ku bilownay abuurkii hore ayaan ku soo celinaynaa waayabo. waana maalintaan u duubayno samada sida loo duubo waraaqaha kitaabka sidaan ku bilownay abuurkii hore ayaan ku soo celinaynaa waayabo korkanaga ah annagaana fallasdaas. saynisyahanadu waxay yiraahdaan fididda iyo ballaarashadu maaha wax iska socda oo aan dhammaad lahayn, gaar ahaan marka aynu ognahay in bilowgii heerkulku ahaa malaayiin hoos u dhaco waadax halka heerkulka iminkuna yahay 3 heer oo waadax ah. haddii haddaba heerkulku hoos u sii dhaco taasi waxay la micno tahay in sariixa dibadda ee adduunka isna wuxuu yeelanayaa hoos u dhac. markaa haddaba uu yimaado waqti oo isriixa dibadda ee adduunku aad uga yaraado cufisjiidadka. markaa cufisjiidadku wuxuu riixayaa walxaha xoogga ayaa markaa isku dhac samaynaya taas oo keenaysa burburka iyo jiritaan la'aanta adduunka si la mid ah bilowgii jiritaan ee markii hore adduunku laga sameeyey. xataa kuwa rumaysan in kala durugga iyo kala waabashada weyne ay kala madax bannaan yihiin waxay dhahaan quraanka oo keliya ah ayaa inoo sheegaya sida wax u dhacayaan oo marka uu kala waabasho weyne dhacdo waxaa dhacaya qarax weyn kaas oo isu bedelaya daruuro qiiq ah kuwo la mid ah kuwii samaysmay markii alle adduunka sameeyey. markaa kadibna alle ayaa amar siinaya inuu samaysmo dhul cusubi taas oo uu samaysmi doono dhul cusubi. waxaana tilmaamay cad u ah aayadda quraanka ee maalin buuna lagu bedelay dhulka dhulka leh iyo samooyinkaba waxaana loo soo bixi eebbaha kelida ah ee awoodda sare leh. waxaa jira 5 weji ama udub oo quraanka sharafta leh caddeeyey. waana mid ka mid ah waxyaalaha ugu dhibaatada badan uguna adag saynisyahanada maanta inay jawaab helaan. balse quraanka ayaa caddeeyey jiritaanka samaysanka adduunka
haddaba waxaa jira in saynis ahaan dhowaan la ogaaday calaamaha uu qur-aanku sameeyey laba weji oo qur-aanku inoo sheegay oo ah sida uu adduunku u burburi doono ama u dhammaan doono isla mar ahaantaa u samaysmi doono iyo sida dadku uga soo bixi doonaan qabuurahooda si ay u wajahaan maalinta xisaabta una aadi doonaan aakhiro qur-aanka iyo sunnaha rasuulka waxay inoo sheegeen in ay jiri doonaan saddex weji saacadda isu soo bixinta maalinta xisaabta oo ay bilaabmi doonto nolosha maalinta saddexdan weji waxay u dhici doonaan si degdeg ah nebi maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu si waafi ah ugu celceliyey argagaxa iyo cabsida ay leeyihiin iyo isgaraaca dhaqsaha badan ee ay u dhacayaan iyagoo isdaba jooga markaan fahanno oo dhug u yeelanno waxa aynu ka akhrinay qur-aanka iyo axaadiista nebiga naxariistii nabadgelyo korkiisa ahaatee waxaan si waadaxa u arkaynaa sida waafiga ah ee qur-aanku u cabiray oo ay u markhaati kaceen aragtiyo badan oo saynis ah oo hadda la ogaaday waxaan ka hadalay aakhiro waa wax maqan oo aynan arki karin sidaasi la mid ah kama hadli karno soo bixidda inkastoo nebi maxamed naxariistii nabadgelyo korkiisa ahaatee sharaxay axaadiista sida ay u dhici doonto isa soo saariddu sidaasi la mid ah qur-aanku wuxuu ka warramay saacadda oo ah jiritaanka ugu dambeeya ee adduunka taasi waa waxa aynu ka fahmnay marxaladaha kala qeexa ee saacaddu waa muddada ugu dambaysa ee jiritaanka adduunka waa marka wax waliba u sii socdaan barta dhammaadka sida uu yidhi nebi maxamed naxariistii nabadgelyo korkiisa ahaatee ku xusan kitaabka tajriid qofkii doonaya inuu arko maalinta qiyaamaha aragti dhaba ha akhriyo ida shamsu kuwarag alfidar xadiiska oo uu wariyey imaam axmed qofkii raba inuu arko maalinta mashraxa iyo isa soos bixinta qofka oo doonaya inuu indhihiisa ku arko maalinta ha akhriyo saddexdan suuradood ida shamsu kuwirat wa ida samaa'u fatarat wa ida samaa'u shaqat waxaan isku dayey inaan eego saddexdan suuradood si xeel dheeri ah oo saynisnimo ah si aan u arko oo u xaqiijiyo wax kasta oo si daqiiq ah u dhacaya oo qur-aanku inoo sheegay markaan eegno oo akhrino shaki la'aan waa cabsi waxaan rabaa inaan waxaan doonaya su-aal idin weydiiyo iminkadan qorraxdu cabsi ma ku gadaaman tahay xaqiiqdii masaafada dheer ee u dhaxaysa qorraxda iyo dhulka oo lagu qiyaasay 150 milyan oo kilomitir waxaan arkaynaa innagoo dhulka taagan qorraxda waana cabsi xaqiiqi ah haddaba markii ay saynisyahanadu u direen dayax gacmeed gaar ah kaa oo ku dhowaaday qorraxda oo meel u dhowna sawirro ka soo qaaday waxay muujiyeen sawirradaasu wax ay saynisyahanadu ku tilmaameen cadceedo muhiim ah cadceedahan muhiimka ahi waa xoogag waaweyn oo qorraxda u sii jira 100,000 oo kilomitir haddaba markii la isweydiiyey waa maxay sababta ka dambaysa cadceedahan muhiimka ah leh waxay jawaabtu ku soo ururtay qorraxdu waa sida xidigaha kale oo waxay leeyihiin nuclear weyn oo ka jira habu socodka nuclearka dhexdiisa marka uu qaybsanka ku guda jiro allah wuxuu siiyey qorraxda iyo xidigaha samada ku yaalaba awoodda isku ururidda ee hawooyinka fudud sida hydrogen si ay u sameeyaan walxo awood sare oo culus leh walxaha fudud waxay sameeyaan isku tag iyo isdhexgelid si ay u soo saaraan walxo awood culus leh oo ay u sameeyaan awood ama xoog kaas oo ay u baahan yihiin nolosha adduunka haddaba waa wax isku xidhxidhan oo wada jira isku xidhnaantooduna waxay helaynayaan in cadceedaha sawirka laga qaaday meel u dhow qorraxdu lagu arkay wax la yaab leh waxaan kaloo arkaynaa qaar ka mid ah cadceedaha ama waxa loo yaqaan solar storms in ay u soo dhowaadaan dhulka marka uu dhacayo falcelinta nuclearka ee qorraxda dhexdeeda ka dhacaya
taas oo ay misna ku libdhayaan qorraxda bartamaheeda taas oo ah cabsi weyn oo run ah. waxaa la aqoonsaday oo la ogaaday dhowaanahan marxaladaha ay maraan xidiguhu marka ay dhimanayaan oo awoodu ka lunto in ay wareegalaystaan oo fogaadaan. markaan u soo noqono cabsida runta ah waa marka ay cadceedaasi dibadda u soo baxaan oo misna dib ugu qarqoomaan isla xidigta, waana markan qur-aanku u akhriyey. mid ka mid ah salka iyo asaaska saynisku marka loo eego saacadda qiyaamaha waa aragtida qorraxda ee cabsida runta leh, waayo sida degdega ah ay u samaynayso falcelinta ee ka dhex dhacaya qorraxda dhexdeeda, waana sida aayaddu u akhriday. waa la yaab in kitaab la soo dejiyey in ka badan 14 qarni hortood oo weliba lagu soo dejiyey nebi aan wax akhrin, naxariis nabadgelyo ku risaatay, oo weliba ka mid ah bulsho aan wax aqoon oo wax akhrin, inay soo bandhigaan xaqiiqada xujooyinka wadatay ee saynisku sheegayo maanta. taasi waa aayadaha alle ee maaha wax bini'aadmi sameeyey ama samayn karo. wejiga labaad ee xidigta dhimanaysa waa luminta ay luminayso iftiinkeeda. luminta ay lumisay wax weyn oo nukliyeerkeeda ah waa lama huraankeeda, habsami u socodkeeda. marka ay dhimanayso xidigtu waxay si tartiib ah u weydaa iftiinkeeda, waana sababta suuraddu u tiri marka qorraxda la duubo qiyaamada xidiguhuna daataan. yaa ogaataa in ka badan 14 qarni hortood oona le ahayn naxariis allah mahadoo dhan leh. qorraxdu xaqiiqdii waa nukliyeer aad u weyn oo uu ku dhex jiro koritaan iyo dhambalan dhexdeeda isku noqnoqonaya kuna soconaya socod la yaab iyo cajiib badan leh.